بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي هلكن ودلبيلة تي في قodobada aad ku maqli doontaan warkayaga haduu rabbi ka raali noqdana waxa qayb ka noqonaya dawladda Soomaaliya oo beenisay inay ka laabatay dacwada badda ee kala dhaxaysay Kenya kadib xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo dib u soo laabtay laba kamid ah askartii loo haystay dilka gudoomiyihii hore degmada Hodan oo la sii daayay ra'iisul wasaarihii hore oo Soomaaliya oo ka hadlay dib u soo celinta xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Kenya maamulka Puntland oo markaasi ka baqdin qaba weerar kaga imaanaya dhanka al-shabaab maalmaha ciida ee foodan ugu soo haya maxkamad ku taala dalka Kenya oo fasaxday cunista hilibka dameerka maxay ka dhaheen Soomaalida ku dhaqan wadankaasi daawadayaal intaasi waxay noqonayaan qaar kamid ah qodobadii ugu door corona warkayaga halkan waa dalbila TV hadaba hadii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay ee bartan YouTube ee dalbila TV waxaynu si naxariis la kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furto daawada si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaga barnaamijyaadka iyo sidaas oo kale arrimaha Soomaaliya oo idinkugu soo gudbino dalbila TV waxa uu diiradda saarayaa siyaasadaha isdiidan ee Soomaaliya ka jira ciidamada gadoodsan ee isla markaana diidan muddo kororsiga iyo guud ahaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya ugu horeyn aynu ku bilawnay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal iyo arrimaha la xiriira in markaasi ay dawladda Soomaaliya ka laabatay dacwadda badda ee markaasi u dhaxaysay labada dal isla markaana taalay maxkamadda caalamiga ee ICJ dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay wada hadal la furayso dawladda Kenya kadib markii dawladda Soomaaliya 6dii bishan ay ku dhawaaqday inay dib u soo celisay xiriirka kala dhaxeeya dawladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay dawladda Soomaaliya inay wada hadal la furayso Kenya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa sheegay in markii hore sababta Kenya xiriirka loogu jaray ay keentay faragelin ay ku sameysay arrimaha Soomaaliya isla markaana ay dhagaha ka fureysatay baaqiyo dhowr ah oo ay markaasi u jeediyeen wuxuu hadalkiisa ku daray wasiirka inay wada hadal toos ah ay la fureen dawladda Kenya isla markaana ay arintaasi wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay wadi doonto si loo dhameeyo madmadowga ka dhex jira labada dal ayuu yiri hadalka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dawladda Qatar ay ka dambayso in dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqdo dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee markaasi ka dhaxeeya labada dal dawladda Qatar ayaa wafdi gaar ah waxa ay u soo dirtay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana wafdiga uu horkacay Dr. Mutlaq waxa uu wafdigaani sheegay in markaasi warqad casuumaad iyo salaan uu ka wado boqortooyada Qatar sidaas oo kale wafdigan ayaa waxa ay gaareen maalin kadib magaalada Nairobi halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa ay kala hadleen sidii loo soo celin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee qotaha dheer ee markaasi ka dhaxeeyay labada dal wafdigan ka socday dawladda Qatar ayaa ugu dambeyn waxa ay ku guuleysteen in markaasi dib ay u soo celiyeen xiriirka labada dal kadib waxa ay dawladda Kenya war qoraal ay soo saartay sidaas oo kale ay ku sheegtay inay soo dhaweynayso hadalka ka soo baxay dawladda Soomaaliya ee ku aadanaa in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal markaasi dib loo soo celiyay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddo dheer xiriirkooda waxa uu ahaa mid aan wanaagsaneyn dawladda Qatar ayaana waxa ay ugu dambeyntii ku guuleysatay inay markaasi dib u soo celiso xiriirka labada dal oo daris ah geesta kalena ra'iisul wasaare xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa wax uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay arrimaha la xiriira dacwadda badda iyo sidaas oo kale hadalka muranka badan dhaliyay ee baraha bulshada la isla dhaxmaraya ee ku aadan in dawladda Soomaaliya ay ka laabatay xiriirkii dawladda Soomaaliya ay ka laabatay dacwadii badda ee markaasi kala dhaxaysay Kenya waxa uu sheegay in soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo sidaas oo kale arinta badda aysan shaqo isku lahayn ra'iisul wasaare xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qatar ayaa sheegay in arinta badda ay ka madax banaan tahay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya kadib markii ay soo ifbaxeen warar sheegaya in Soomaaliya ay dib uga laabanayso kiiskeeda badda muranka badda waxa uu markaasi soo gabagabeynaya isla markaana soo gabagabeynayso maxkamadda caalamiga ah kadib dhageysigii soo dhamaaday 15 ilaa 18 Maarso ee sanadkan
waxaan sugaynaa xukun cadaalad ah ayuu Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ku soo qoray bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka isagoona sidaas oo kale sii raaciya arinta badda gooni ayay ka tahay xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada dal. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sidoo kale ahaa u qaybsamaha dowladda Soomaaliya ee arinta dacwadda badda isagoona hogaaminaya wafdi Soomaaliya ee qaybta ka ahaa dhageysiga dacwaddaas labadii jeer ee markaasi ugu dambeysay. Kenya ayaa dhowr jeer oo hore dalbatay in wada hadal uu hormuud ka yahay Midowga Afrika lagu dhameeyo muranka badda, hase yeeshee Soomaaliya ayaa sheegtay in kaliya ay ku kalsoon tahay go'aanka maxkamadda ICJ isla markaana Soomaaliya ay doonayso in loo sameeyo xad rasmi ah oo u dhaxeeya labada dan. Khamiistii aynu kasoo gudubnay Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dib ay u soo celisay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya Kenya kadib markii arintaasi ay dhexdhexaadisay dowladda Qatar. Wafdi uu hogaaminayo Dr. Mutlaq bin Al-Majid Al-Qahtani ee u soo dirtay labada dal isagoo oona la kulmay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo sidaas oo kale Uhuru Kenyatta. Soomaaliya ayaa xiriirka u jirtay Kenya 15 Sebtembar sanadkii hore 2020 iyada oona ku eedeysay xukuumadda Nairobi in markaasi faragelin ba'an ay ku hayso arrimaha Soomaaliya. dowladda Qatar waxa ay noqotay dowladii ugu horeysay oo markaasi ku guuleysatay in dib markaasi labada dal ay xiriirkooda diblomaasiyadeed u soo celiyaan. markana Muqdisho laba kamid ah raggii loo haystay dilkii gudoomiyihii hore ee degmada Hodan ayaa la sii daayay. maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa waxa ay wali wadaa dhageysiga guddigii loo xilsaaray baarista dilka gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun oo loogu geystay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. maxkamadda ciidamada ayaa sii deysay laba kamid ah 7 eedeysana kadib dhageysiga guddiga oo ay maxkamaddu markaasi ka waday qayb isla markaana qayb ay ka aysan ahayn risaastii uu ku dhintay gudoomiyaha degmada Hodan Cabdiraxmaan Isaaq Cabdullaahi iyo Xasan Abuukar Maxamuud Buuqsane ayay maxkamaddu sii deysay kuwaas oo la xiray markii uu dhacay dilka. waxaana horay 5 kamid ah dadkii ku eedeysnaa dilka uu ku jiro taliyihii hore ee saldhigga booliska degmada Howlwadaag la sii daayay. xafiiska xeer ilaalinta ayaa eeda markaasi kala noqday 2 kamid ah raggii loo haystay in ay ka dambeeyeen dilkii Alla naxariistii jannaha ka waraabiyay gudoomiyihii hore ee degmada Hodan. ilaa iyo wali sidaas oo kale waxaa soconayso qaar kamid ah eedeysanayaal lagu haysto in ay ka dambeeyeen dilka gudoomiyihii hore ee degmada Hodan. dowladda Soomaaliya ayaana wax ay horay u sheegtay in ay wadayso isla markaana baaritaanka ilaa iyo si rasmi ah uu kaga soo baxa kiiska eedeymahaasi loo haysto. qaar kamid ah inay markaasi qayb ka ahaayeen ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya waxayna sidaas oo kale sheegeen qaar kamid ah saraakiishii iyo taliyaashii boolis xilliga dilka uu dhacay ku sugnaa goobta uu dilka ka dhacay in arintaasi aysan ahayn mid si ula kac ah ay markaasi u sameeyeen. markana Puntland maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu sheegay in diyaar garow xoogan uu ugu jiro sugidda ammaanka maalmaha ciida. sidaas oo kale waxa ay sheegeen in ay ka baqdin qabaan weerar kaga imaanaya dhanka Al-Shabaab. kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland ahna madaxweyne xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa shir gudoominaya kulan ku saabsan amniga guud iyo sidaas oo dardargelinta qorshaha amniga ee maalmaha ciida. kulankani ayaa waxaa ka qayb galay wasaaradda cadaaladda, taliyaha ciidanka daraawiishta iyo booliska maamulka Puntland, Nugaal iyo kan degmada Garowe iyo saraakiil ka socotay madaxtooyada. kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland ahna madaxweyne xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa faray dhammaan laamaha amniga ee maamulka Puntland inay dardargeliyaan howlaha sugidda amniga inta lagu guda jiro maalmaha ciida. geesta kale waxa ay sheegeen inay ka baqdin qabaan weerar kaga imaanaya dhanka xarakada Al-Shabaab sidaas oo kalena ay galeen diyaar garow buuxo oo ku aadan in maalmaha ciida ay diyaar u yihiin sugidda amniga guud ahaan ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi. daawadayaal wali waxaad la socotaan warkii oo idinkaga imaanaya Dalbila TV. guud ahaan halka ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii oo aad kala socoteen daawada Dalbila TV. waad ku mahadsan tahay la socodka iyo la jaanqaadka warkayaga. halkan waa Dalbila TV. haddaba haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay bartan YouTube ee Dalbila TV
waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furato si aad mar waliba u hesho xogaga wararka warbixinada iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aynu idinkugu soo gudbina bartan YouTube ee Dalbila TV muuqaalada warbixinada wararka aan idin soo gudbinayno asxaabtaada waad u sii share gareyn kartaa daawade haddii aad ka hesho si sidaada oo kale ay kaga bogtaan isla markaana ay ugu xirnaadaan bartan YouTube waad ku mahadsantahay la socodka la jaanqaadka warkayga